بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم walaalayaal kasoo dhawaada barnaamijkeeni gaabnaa aayateenka qaybta saddexaad insha allah tacaala maanta waxaan kusoo qaadan doonaa mawduuc qasiir aad u ballaaran balse aan soo koobi doono mawduuc dars aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah ama wuxuu yahay alghafla can ilaakhirati walinshiqaaq fi dunya oo macnaheedu yahay hilmaanka aakhirada qofku inuu hilmaamo aakhiro iyo inuu ku mashquulo adduunka ama adduunka uu hilmaanna aakhira kaga sugan yahay adduunkana aad ugu mashquulo oo aakhira meesha ka saaro marka mawduucan mawduuc ballaaran waaye aan lagu soo koobi karin wax yar balse insha allah tacaala intii alla naga karsiiyo si kooban baan waxaan kusoo qaadan doonaa laba aayadood oo xoogaa xoojinaya barnaamijku maadaama aayatan yahay qofku inuu adduunyada yaa ku xeeldheeraado oo aakhira meesha ka saaro lama ogola mar walbo qofka adduunkiisa waxaa la yiri adduunkaagana waa maxay inaad nasiibkaaga ayaad ka leedahay oo ilaahay kuma diidin walaa tansa nasiibka min addunya ilaahay markuu leeyahay macnaha waa qofka adduunkiisa lagama dhigin ka haajir balse nasiibkaaga intii kaaga habboon oo kaaga wanaagsan samee wa axsin kama axsana Allahu ilayk inaad qofku ilaahay siduu u wanaajiyo in uu wanaagsan laga rabo walaa tabqi fasaad fi ard aakhirana marka ayaan ardada ama dhulka aad fasaad la iman marka si kooban insha Allah tacaala marka ciwaankan ciwaan muhiim waaye waxaan ka doonaa aayadaha xoojinaya ciwaankan muujinaya qofka inuusan adduunka ku xeeldheeraan marka qaybta kale oo aayadda ay sheegayso aayadda koowaad aan soo qaadan doono waa maxay aayadda suurat yunus ku jira ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati addunya waatma'annuu biha waladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum naar bima kaanuu yaksibuun aayaddan ina aladiina kuwii laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'ana kuwankeenna inaan la kulmi doono oo aakhiro aan la kulmi doono aan rajaynayn ama xisaabtaba aan ku darsanba oo waxba aan ka soo qaadinba inaan aakhiro la aadi doono waraduu ku raalli ahaaday ama la dhacsanba bilxayaati dunya adduunyadan dhow bilxayaati dunya nolosha bis bay la dhacsan yihiin wadma'annuu waynu ku xasileen ayaday ku xasiloon yihiin wax aakhiradina waxba kama soo qaadin biyaa waladiina kuwii hum can aayaatina gaafiluun iyo kuwa maxay aayadaheenna beeninaya oo aayadaha aan hadda la akhrinayo waxay ka wada sheekanayaan waa aakhiro qofku inuu maxay tahay isku baalansi gareeyo aakhiradiisa iyo adduunkiisa isku baalansi gareeyo oo mar walba ku xisaabtamo inay maalin dambayso waayo marka maalinkaasna waa laga hadla yawma yacudu dhaalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca rasuuli sabiila sidoo kale yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ataa allaha biqalbin saliim yawma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh maalin uu qofka dhaalimka uu qaniini doono farta qaniini doono maalin uu wajiyo badan acdaan doonaan kuna ay madoobaan doonaan maalin uusan maal ku anfici doonin maal adduunye kasoo aad u haysatid maalinkaas maalkaagu waxba ku tari maayo waxa ku taraya waa camalkaaga wax ku taraya marka sida aan sheegnay muhiimaddu waa qofku inuu aakhira mar walba iyo adduunkiisa uu si wanaagsan isu wato uusan qofku uusan ku xeeldheeraan adduunyadu isku xeeldheeraan waayo kuwa marka beeniyey ama waa maxay aan inaan la kulmi doono meesha ka saaray oo adduunyada ku xeeldheeraaday oo ku degay kuwaasi ma maxay iyo kuwa aayadaheenna khilaafay oo ama maxay gaafil kaga sugan gafla wax la yiraahdo ama hilmaan kaga sugan ulaa'ika ma'waahum naar kuwaas marka waa maxay ma'waahum naar hoygoodu waa naar mar badaad maxay qofku isu camal falin adduunyada aakhirana u shaqaysan ma'waahum naar naar ayaa maxay tahay hoy wax bima kaanuu yaksibuun naartana ilaahay iskama geline bima kaanuu yaksibuun wixii ay kasbadeen oo iyagu waa maxay shaqaysteen ay ku geliyaan waa ayadda labaad oo ayadana aan ku xoojinayno barnaamijka ama alghaflatu can alaakhirati walinshiqaalu bidunya ayadana waxaa waa yaclamuuna dhaahiran min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun yaclamuuna waxay ogyihiin dhaahiran ama waxay yaqaanaan dhaahiran min alxayaati dunya waxa yarka muuqdo adduunyada ah bay aad u yaqaanaan wahum ayaguna can alaakhirati aakharana hum gaafiluun aakhira waa hilmaansan yihiinoo wax aakhiro camal ay u shaqaysanayaan ma jiro qof walba wuxuu dhalaalka adduunyada kore buu yaqaanaa ama cayrinaya marka ayaddan iyadana waxay xoojinaysaa qofku adduunyada inay u qaybsanto labo dhaahir iyo baatin wax la yidhahdo dhaahir marka lagu leeyahay waa wixii muuqdo waaye adduunyada maanta maal iyo awlaad iyo maanta see ahay xaaladii kale maanta waxaas yarka muuqda baatin inay leedaho jidho baatinkaas uu yahay qofku inuu wax wanaag badan sameeyo oo aakhiradiisa iyo adduunkiisa waa maxay wanaagsan waaye marka baatinka qofku inuu diintiisii iyo maxay tahay camalkii wanaagsanaa uu qabto ilaan markasta uu qabto maxay isuu markaas heli maayo balse dib u dhiganayaa oo wuxuu og yahay aakhir inuu maxay tahay heli doono camalkan uu samayn doono marka haddii camalkaagii kusoo ururo keliya adduun see u helaa hadduu kusoo ururo ayada laftirkeeda waa dhib marka qofka waxaa la rabaa inuu daahir keli uusan cayrin ogaado inay jirto waxa la yidhahdo baatinka ama
inuu qofku aakhiradiisana wax meel u dhigto oo sacyiga adduunka aad samaynayso isku koobnaan adduun bis isku koobnaan wax walba camalkaas aad qabanaysid u fiiriso aad isku balance garaysa kee wanaagsan ama kee maxay keeba adduunyada wanaagsan iyo keeba aakhirada wanaagsan labadooba waa maxay kee wanaagsan inaad isku wadid oo qofku asuu caqligiisa ka shaqeeyo ayaa loo baahan yahay adduunya wahum can aakhiratuhum gaafiluun marka muhiimaddu yaclamuuna ظaahiran marka gaaladu marka waxay yaqaaneen yaclamuuna ظaahiran ظaahirka marka lama rabo in la xukunto waxaa la rabaa in aakhiradaada iyo waa maxay aad ku xisaabtanto marka guud ahaan waxaan ku dardaarmay insha allah qof walba naftiisa inuu miisaamo miisaanka uu saarayna wax kale maaha wax kasta aan samaynayo aakhiro inaad mataqaana ku darsato qorshaha ku darsatid oo wax kastoo hadda aad samaynayso inay maalmahan la dhaafi doono oo waqtigu yahay waa maxay wax ku dhaafi doono 10 sano ka hor haddaad noloshaa dib u celisid wixii aad samayn jirtay qaarna waxaa laga yaabaa inay hadda iyo aakhirada wanaagsan yihiin qaarna aad is leedahay maxaan u sameeyey oo aad ka shalaydo marka hadda inaad qorshaha ku darsatid baan kula dardaarmayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.